wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay oo ka soo kicitimay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxa ay soo gaareen degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ayaa si toos ah waxa ay ugu gudbeen kastamka Duurdibi halkaasi oo ay kulan saxaafaddu dibadda ka joogtay loogana hadlayay amniga kula qaateen gudoomiyaha gobolka Doolo iyo saraakiil ka socday dawladda Itoobiya. Markii uu kulanku soo idlaaday ayaa waxa saxaafadda uga warbixiyay arrimihii laga wada hadlay afhayeenka madaxtooyada dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel wuxuuna sheegay arintani in ay ku timid kadib markii dawladda Puntland ay xirtay xuduudeeda iyo baabuurta rarka ka keena koonfurta Soomaaliya in lagu rogo magaalooyinka Galdogob, Gaalkacyo iyo Tawfiiq si looga hortago baabuurta hubka iyo walxaha qarxa soo gelinaya gudaha Puntland. adiga madaxweyne ku-xigeenka wada socday xaaladda xagee baa maraysaa shir baa gashay shirkii wixii ka soo baxay bal dadweynaha aad u mahadsantihiin maanta waxaan joognaa degmada Galdogob sida aad la socotid waxa ayamahan socday in dawladda Puntland ay xirtay xuduudda isla markaana ay ugu tala gashay in la sugo amniga guud ee dalka saas awgeedna la soo rogay in dhammaan gaadiidka ka yimaada koonfurta Soomaaliya lagu rogo muxuu ahaa Galdogob iyo Gaalkacyo saaxa iyo Tawfiiq iyo Jariiban gawaarida ka soo socota Puntland lagu celiyo meesha saas waxa ka dhacay shir amni oo la iskaga kaashanay dawladda deegaanka Puntland ee Soomaaliya iyo dawladda federaalka inay shaqadaas si wada jir loo qabto maadaama laga hortagayo cadow Soomaali in wada leynaya isla markaana waxay dawladda Puntland iska kaashanayaan iyo dawladda Itoobiya sidii ay uga hortagi lahaayeen wax kasta oo khalkhal ku wada xuduudda iyo sidii loo joojin lahaa gaadiidkaas sida xogta iyo ciidanka iyo hubka cadowga aad ba mahadsantiin. sidoo kale gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Maxamed Ayaxle oo shirka ka qayb galay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi. aad baad mahadsantihiin telefishinada SBC iyo Somali Channel iyo Somali News maanta waxa kormeer ku yimid aan horey loo shaacinin madaxweynaha ku-xigeenka dawladda Puntland ahna madaxweynaha wakiilka madaxweynaha dawladda Puntland injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camay madaxweynaha si fiican baan u soo dhaweynay wuxuu kormeer ku maray wadada dheer ee kastanka iyo isku xidha Gaalkacyo toos buu kastanka u galay wuxuu la shiray maamulka degmada arrimaha nabadgelyada oo hadda la sii adkaynayo baa ugu muhiimsanaa waxyaalihii laga shiray kulina arrimo nabadgelyo ku koobnaaya. dhanka kale gudoomiyaha degmada Galdogob ayaa waxa uu sheegay in baabuurta Puntland oo aanan wadan warqad dhaqdhaqaaq in la qaban doono wixii taarga Puntland wata oo xagga u gudbaya taarga Puntland xataa looma ogola wixii kale oo Puntland ka dhex shaqaysanaya Soomaali waa isku mid laakiin gaarigu inuu taarga Puntland isagoo wata meeshu raba iska aado ama loo isticmaalo ma dhici doonto insha Allah mar dambe gaadiidku sidaas u socdaa waxaan rabaa inaan u sheego bulshada reer Galdogob khaas ahaan gaadiidleyda Puntland warqad dhaqdhaqaaq gaarigan wadan in degmada Galdogob soo mara ee Puntland inteeda kale u gudba oo la qabto waa dambile markuu ugu yaraadana wuxuu noqonayaa 3 sano in sidoo kale gudoomiyaha degmada Galdogob ayaa waxa uu ka hadlay muran ku saabsan canshuuraha oo kala dhaxeeyay magaalada Bacadweyn arinta Bacadweyn arin jidhay ahayd dawladda dhan waa ogtahay Bacadweyn uguma xigto koonaha Puntland waxa koonaha kastanka xiga Galdogob dawladuna waa ogtahay canshuurta halka lagu qaadayna khalad inay ahayd waa ogtahay wasaaradda maaliyadda waa ogtahay arintaas dawladdu waa dhex gashay wayna dhamaatay waxaan rajaynaynaa hadda kadib canshuur dambe oo ay Galdogob leedahay in aan lagu qaadin Bacadweyn. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa waxa ay dib ugu laabteen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Maxamed Cumar Afdhuub raadiyaha iyo telefishinka caalamiga ah ee SBC degmada Galdogob.